intii u dhexaysay sanadkii 2012 iyo 2015 dadka ku nool tuulada Karachi ee ka tirsan Kazakhstan waxaa ku dhacay cudur markaasi hurdo ah isla markaana ilaa 6 maalmood ayay qaarkood hurdeen waxaana sheekadan wax ka qoray warbaahinta caalamka sida BBC, The Guardian, RT News, Indian Times iyo kuwa kale. dadka ayaa la ildarnaa hurdo saayida waxayna xaaladaasi noqotay mid aan la baahin ilaa 2 sano. dadka halkaa jooga ayaa inta badan la arki jiray iyaga hurda habdhaqankooda hurdadaasi awgeed dadka tuulada ayaa sidoo kale marar badan waxaa lagu sameeyay baaritaan oo gaaraya in ka badan 1000 jeer. qof ayaa la arkaya isaga hurday hurdo lama filaana. taasi waa sababta halkaasi loogu magacdaray tuuladii hurdada. sanadkii 2010 Lyubov Belkova waxay ahayd qofkii ugu horeeyay ee la tagtay hurdaan la xakameyn karin taasoo keentay inay mugdi ay gasho xaalkeeda. ma aysan kicin ilaa 4 maalmood. muddo kadib isbitaalka ayaa la geeyay halka waxaa dhakhtarku uu sheegay in haweeneydaasi uu ku dhacay xanuunka loo yaqaan vaaliga. laakiin muddo kadib ilaa ku dhawaad 10 qof oo kale ayaa isbitaalka la keenay iyadoo xaaladda ay noqoto markaasi in sida dhakhtarku uu sheegay si aan ahayn ay halkaasi ay ka soo baxday. dhowr bilood kadib ilaa 140 ka mid ah 810 ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa waxa uu saameeyay xanuunkaasi hurdada ahi. taasina waxay xilligaas ay u muuqatay cudur faafaya. dadka halkaasi ku noolaa waxba ma aysan xasuusan karin hurdada kadib. ku dhawaad 160 qof ayaa qaatay waqti dheer oo hurdo ahi. marka uu qofku u seexdo waxa uu iloobayaa dhammaan waxyaabihii hore ee dhacay. qofna ma fahmi karin waqtigaasi sababta ay waxaas ay u dhacayeen. xaaladdu waa in dadku ay hurdaan waqti kasta iyaga oo wax cunaya, wax cabaya, qof socda iyo wixii la mid ahi. ma jirin inuu qofku markaasi hurdada ka hor uu dareemayo hurdo. waa dad aan hurdahayn oo xilligaas ka hurdayay. cudurkaasi hurdada ayaa inta badan waxa uu saameeyay dadka waaweyn iyo carruurta. haddii aad isku daydo in qof ka mid ah aad toosiso waxay u muuqataa in qofku uu doonayo inuu indhaha uu kala qaado laakiin ma awoodo. kaliya waa uu seexdaa oo haddana waa uu sii seexdaa. dhakhaatiirta ma aysan awoodin in markaasi ay ogaadaan waxa keenaya jirada hurdada inkastoo qaarkood ay soo jeediyeen in halkaasi uu ka jiro cudurka dhimirka ee maskaxda ku dhaca halka qaarkoodna ay soo jeediyeen in markaasi ay qabaan in tuulada ay ku taal meel u dhow macdanta uranium hore taasi oo saameyn ku yeelatay dadka. sidoo kale waxaa la tilmaamay in biyaha dadkaasi ay cabayeen in mararka qaarkood ay ahaayeen kuwa sumaysan. inkasta oo baaritaanada iyo kiisaskii kala duwanaa ee laga qoray tuuladaasi Karachi oo aan markaasi ilaa iminka aan si dhab ah loo hayn ayaa haddana waxay ahayd sheeko markaasi dad badan aan ka warhayn.